ciidanka gaarka ah ee danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa si gaar ah loogu bartilmaameedsaday dhufeysida iyo gabaadka ay khawaarijtu ku dhuumaaleysanayeen. intii uu socday howlgalku ciidamada ayaa diray in ka badan 100 xubnood oo ka tirsanaa khawaarijta kuwaasi oo ay ku jireen horjoogayaal muhiim ah. Gudadkii iyo gabaadyadii ay kooxdu isku dayeen inay isku qariyaan ayaa lagu dumiyay duqeynta cirka, halka cutubyada danab ay gudaha u galeen goobihii cadawgu ku sugnaa si loo xaqiijiyo guusha howlgalka. Xogta sirdoonka ee la helay ayaa muujinaysa in khawaarijtu ay u diyaar garoobayeen sidii ay isaga caabin lahaayeen howlgalka ballaaran ee duufaanta aamusan oo ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AUSM ka wadaan deegaanada Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa dhabarjab culus oo weyn ku noqday kooxda kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay si isdaba joog ah loogu jabiyay Sabiid iyo Caanoole iyo Beri Raba. howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku wadaan sidii loo ciribtiri lahaa khawaarijta loona xaqiijin lahaa amniga shacabka Soomaaliyeed.